arday ayaa macallimadiisa weydiiyey maxaad u guursan weyday ilaa xilligan adigoo aad u qurux badan. waxay ku jawaabtay macallimadii waxaa jirtay haweeney dhashay 5 gabdhood kadib ayay uur yeelatay. ninkii qaba ayaa ugu hanjabay hadday mar kale gabar dhasho inuu gabadhaas tuuri doono. haweeneydii waxay dhashay gabar. ninkii intuu gabadhii yara soo qaaday ayuu habeenkii wuxuu dhigay albaabka masjidka. salaadii subax markii la gaaray ayuu is yiri bal soo fiiri in gabadhii la qaatay iyo in kale. wuxuu ugu imaaday gabadhii yareed oo weli meeshii taala. kadib ayuu guriga ku soo celiyey. maalinkii oo dhan hooyada quraan ayay u akhrin jirtay gabadheeda si aan cid u qaadan. ninkii markuu ka quustay 7 bari habeen walba geen jiray albaabka masjidka ayuu go'aansaday inuu iska daayo. gurigana ayuu dib ugu soo celiyey. hooyadii aad ayay u faraxday. haddana mar kale ayay hooyadu uur yeelatay. cabsi ayay mar kale dareentay. balse nasiib wanaag markaan waxay dhashay wiil, laakiin waxaa geeriyootay gabadhii curda u ahayd. haddana mar kale ayay hooyadu uur qaaday. waxayna dhashay wiil kale, laakiin waxaa geeriyootay gabadhii curda ku xigtay. muddo kadib hooyadii way geeriyootay. carruurtina way weynaadeen. macallimadii ardaydii ayay su'aal weydiisay ma taqaaniin gabadhii yareed ee aabbaheed rabay inuu tuuro. macallimadii ayaa tiri waa aniga gabadhaas oo aabbaheed tuuri rabay. walaalahayga 5 ahaana booqasho oo keliya ayay ugu yimaadaan. qaar ka mid ah bishii ayay hal mar soo booqdaan, qaarna 2 bil ayay mar soo booqdaan. aabbahayna mar walba wuxuu ka qoomameeyaa oo la ooyaa wixii uu igu sameeyey, laakiin anigu waan jeclahay aabbahay. inta aan noolahayna waan daryeeli doonaa. walaalahayga sharafta leh eena daawanayo, haddii ilaahay ku siiyo gabar alxamdulilaah dheh, waxaa laga yaabaa inay khayr badan kuu wado. ilaahay ragga wuxuu ku sharfay inuu ka dhigo rasuul iyo nebiyo, balse ilaahay haweenka wuxuu ku sharfay inuu ka dhigo hooyooyinka nebiyada. maadaama ay jannadu lugaha hooyooyinka la hoos dhigay, waxaa waajib nagu ah inaan daryeelno. sheekadan way iga ilmaysiisay, aadna way ii saamaysay. dhammaan inta daawata muuqaalkan waxaan ka codsanayaa inay gaarsiiyaan dad badan si ay u gartaan qiimaha hooyada. ilaahay ha ku xifdiyo hooyo. hal su'aal ayaan ku weydiinayaa daawade. maanta ma soo dhunkatay gacmaha waalidka? ma u mahad celisay waalidka? haddii aadan samaynin hadda ka gaar intay nool yihiin. hadday dhinteenna u duceey. waxaad ogaataa in raalli ahaanshaha ilaahay uu ku xiran yahay waalidka oo kaa raalli noqda.